لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد waxaan salaamayaa bulshooyinka qaybaheeda kala duwan ee maanta iskugu yimid xafladan quruxda badan. waxaan kaloo iyagana salaamayaa dhalinyaradii noo soo diyaarisay xafladan aadka u quruxda badan ee kulmisay Soomaali weyn qaybaheeda kala duwan, rag, dumar, dhalinyaro iyo odayaalba. ayagana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin marka koobaad iyo marka labaadba. waxaan kaloo idinka raali gelinayaa eray la iigu wacay markii aan meesha soo istaagayay ee ahaa abwaan. anigu ma ihi abwaan. abwaan waxaa la dhahaa shakhsiga ku xeel dheer afkiisa hooyo una gudbin kara bulshada qaybaheeda kala duwan intay rabaan. laakiin xaasha lillah aniga ma gaarsan heerkaas. waxaan suubiyey isku day inaan kala qayb galo xafladan quruxda badan erayada markaas maskaxdaydu soo qabatay ee ma ahana abwaannimo igama keenin. farxadda meeshan Soomaaliya midooday baa iga keentay. waxaan ku talagalay maanse la yiraahdo dhalinyaro dee horta Soomaalidu waxay tiraahdaa haadbahaadkiisu la duulaa. maadaama aniga aan nin dhalinyaro ahay malahan salaada dumarka u heystid ama ragga odayaasha u heystid dee weli dadkaaga waa ku baahna dhalinyaradaadii meesha ka tabaysa. sidaas awgeed waxaan ugu talagalay maanse la yiraahdo dhalinyaro. dee waxaan u malaynayaa afka hooyo wuxuu u dambeysayba waqtigii dowladdii dhaxaanu ma soo gaarin kadib teed baan dhasha. afka hooyo la xanaanaynayana maan arag. marka haddaan erayadeeda qayb qaldo ha layga raali noqdo, waa naf iyo shaydaan bay ka aadeen. aniga maahan. waxay ku bilaabanaysaa maansada dhalinyaro. anigoon dharaarahan maansooyin soo dhigin waxaa ii dhawaaqo dacwadii igu dhaartay dhalintii dalkayga ayagoo ka dhiidhiyey dhacdo aan dhammaanoo duqaydii ku dhiirteen. rabbaan kuugu dhaarshaye waxaa tahay abwaan dhaba dhambaalada jacaylkee Soomaali dhaqankeed hadba buu ku soo dhiga. maanta waa dhankaygee dhinac kale adoon dhugan waxaa dhimirka naga galay maankeenna dhaawacay dhaqankeenna aan gelin diintu aysan noo dhigin adigoon ka dhowrsanin murtimaad ka dhowrtid dhalin baa ku dhowriye. hadalkeenna dhoofiya waxa aad dhex geysaa shacabkii dhugta lahaa dhabta waxaad u sheegtaa madaxdii dhallaankan. markaan dheehday beejkaas dhaliishii xanuunka intay gadaal u dheer tahay garanaya dhiilada anna maandhitaysan dembi aan la dhuuntoon geesaha la dhowree ninka dhoofka jecelow miyirkaagu yuu dhumin maskaxdaadu yay dhumin. anigaa dharaar hore qaxootiga dhex tegayoo tahriib soo dhadhamiyee aan kuu dhammeeye dheeha sheekadaydoo dhagahaaga ii dhiib. waa meel dhib badanoo ruuxii dhex joogaa hurdo dhinaca muudhiga dheeftaad cuntaan iyo ma dhadhamiyo dhuuniga. gowsuhuu isdhaafsaday waxa uu ku dhaygayaa iga dhaqaajiya dhulkii hooye yaa taga. aan soo dhaweeyee maansadaydan dheere haddaan ahay dhallaankii dalka loo dhisahayey waa inaan dhibaatada dhexda suunka ku xirtaa. dhoofkaanna dhalan rabay tahriibkaan dhammaanayn dhalintaydii dhuugtee gaalo dhinacya weyn baa xabsiyada dhigaysee dhimashadan had ya jeer aan dhinacu meerayn aawo kuwii u dhaartay inay dhimi dhaliilaha. dee waa baarlamaankii. diiwaan dhiig dhaqaaqee naxariista loo dhigin miyay dheefta dunida dhaldhalaalka raaceen. madax yahay dhaqaaqoo dadkii waa dhammaadee dhallinyarada caawiya waa ubax dhalaaloo dalku dhowranahaye. ha yeeshee dhibkaa dhacay dhallinyaro ma dhaafnaa baddu inayna dhuuqdo saxaraha ku dhimanno maydkeennu dhoofto xabaa laga dhiteeyo haadu ayda koosha dhallinyaro ma dhaafnaa. dhulkii ma u dhaqaaqnaa webiyadan biyaha dhumin beeramaan ka dhiganoo dhambalnaa ciiddeenno intaan gadaal u dhuganaa dhibkii shalayta nagu dhacay dhambalnaa ciiddeenno miiddeeda dhuuqnaa midhaha kayd ka dhigannaa si aan gaaja noo dhibin. reeramaan ku dhisannaa hablo dhaban qurxoon loo Soomaali dhaladoo dhaqankeenni haysta faras dhoodimeeriya qaalmo dhalay ka dhiibno aroos uga dhacsiino dhallinyaro sharaysani 7 dharaarood dhaantada ciyaaraan.